odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 ka sano la soo dhisay oo maalin walba meel marayay dowladda federaalka Soomaaliya ma qabsan kartaa Puntland muxuu sharciga ka qabaa sidee bay u arkaan reer galbeedka dhammaan muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa media burburkii Soomaaliya 1991 markii uu dhacay dagaalkii sokeeye ee dhacday dowladii dhexe isla markaana ay burbureen hay'adihii dawliga dalka oo idil waxa uu ku sugnaa xaalad fawdo ah shir balaaran ayaa lagu qabtay magaalada Garowe intii u dhaxaysay May ilaa Agoosto 1998 dowladda Puntland waxaa lagu dhisay xanaan heshiis iyo shir dib u heshiisiin ku saleysan iyadoo ujeedadu ahayd in la abuuro maamul deegaanka xilli ay Soomaalida inteeda badan ku jirtay dawlad la'aan u yagleelidii ama dib u dhiskii dawladda Soomaaliya waxay ahayd geedi soconaya muddo dheer oo ku dhawaad 20 sano ah kadib burburkii dawladii dhexe 1991 waxaa la qabtay shirar dib u heshiisiin oo kala duwan kuwaas oo ugu dambeyn horseeday dhismaha dawladda federaalka shirkii carte waxaa lagu dhisay Transitional National Government dawladii qarannimo gaarsiinta waxaa madaxweyne loo doortay Abdulqaasim Salaad Xasan dawladii TNG-da ma aysan maamulin inta badan dalka waxa ay si weyn ugu koobneed qaybo ka mid ah Muqdisho iyo deegaano kooban gobolada dalka waxaa maamulayay hogaamiyaal baysan iyo maamulo iskooda u jiray maamuladaas waxaa ka mid ahaa Puntland shirkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay magaalada Imbagati ee dalka Kenya waxaa lagu dhisay dawladii Transitional Federal Government dawladii federaal gaarsiinta waxaa ka soo baxay ahdi federaal ku meel gaar ah baarlamaan ku meel gaar ah nidaam federaal oo saldhig u noqday qaab dhismeedka dawladda waxaa madaxweyne loo doortay Abdullaahi Yuusuf Axmed marka laga tago Abdullaahi Yuusuf Axmed dhammaan madaxdii ka dambeysay federaalku waxa uu ku ahaa caqabad ku horgudban qadiyada federaaliyada oo dad badan hurdadii u diiday wax badanna mashaakilkeena sidii loo dabaqi lahaa go'aanahan waaba la qaatay hadda kuma lihiin laakiin sidii loo maareyn lahaa ay dhibaatooyin badan ka taagan yihiin dadkuna tilmaameen waraaqaha cilmiga la soo bandhigayna runtii ay falanqayn doonaan wax badan oo ka mid ah qaybaha lagu tanaawulay laakiin waxaan anagu ka istaagaynaa had iyo jeer xagal aysan dadka inta kale ayna ka istaagin federaaliyada siyaabo badan baa looga hadlaa saa darteed dadka qaar waxaa laga yaabaa federaaliye iyo maqaasidda maxaa iska galay inay yidhaahdaan federaaliyadu dhibaatooyinka maanta aan la taahaynay mid ka mida wey sidii loo maarayn lahaa oo ummadda danteeda guud loo maarayn lahaa haddaana nuurka waxyigana lagu fiirinin caqliga iyo xigmadda iyo khibradda bini aadamkana lagu baarinna madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Axmed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu bedelay madaxdii maamulada isaga ka horeeyay markii laga tago Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani si la mid ah madaxweynaha hadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bedelay laba ka mid ah madaxdii dawlad goboleedyada isaga ka horeeyay waxa uu awoodi waayay Axmed Islaam Axmed Madoobe kaas oo uu doonayay inuu ku bedelo senator Ilyas Bedel Gaboose isku daygaas oo ku fashilmay dagaalkii Rees Gamboni Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland haddaba waxaan ku sheegi doonaa laba qodob oo macquul ay tahay in dawladda federaalka qabsato maamulka Puntland ama madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ku bedesho madaxweyne kale sidoo kale waxaan ku sheegi doonaa 3 qodob oo caqabad ku noqon kara howlaha dawladda federaalka ee la damacsan tahay Puntland qodobada macquulka ah siyaasad ahaan kala qaybinta hogaanada Puntland iyo isbahaysi siyaasadeed taageerida ama la shaqeynta siyaasiyiin iyo kooxo gudaha dawladda Puntland ka jira kuwaas oo ka aragti duwan dawladda waxa ay isku dayday qodobkan dawladda siyaasiyiin ama shakhsiyaad la og yahay inay mucaarad ku yihiin ayay xiriir la yeelatay waxaana ka mid ah Asad Cusmaan Diyaano Guuleed Saalax Barre Xasan Shire awood ahaan
dowladda federaalka waxay leedahay ciidan qaran oo waxay ku doodaysaa inay leedahay awood qaran sida difaaca dalka iyo xuduudaha. marka loo eego arrimaha difaaca, dowladdu waxa ay sharci u leedahay magacaabista saraakiisha militariga iyo booliska. sida ay sheegeen wararka bishii tagtay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bishii Juun 2026 u magacowday taliyaha qaybta 54aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. xarunta ugu weyn ee taliskaasna lagu sheegay inuu yahay Garowe. waxa ujeedada magacaabista lagu sheegay inuu hogaamin doono cutubyo ciidanka federaalka ka diiwaan gashan kuwaas oo jooga deegaanada Puntland. dowladda arrimahan sida ay rabto hadday u dhacaan, waxaa macquul ah in Siciid Deni meesha laga bedelo laguna bedelo qof uu Xasan Raali ka yahay. qodobada caqabada ku ah dowladda federaalka ama madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. mudxileedka Siciid Deni iyo Puntland doorashadii hore u dhacday intii aan la sharciyadan iyo nidaamyadan waxaan aan la dejin. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa mar labaad loo doortay madaxweynaha Puntland 8 Janaayo 2024. doorashadaas ayaa ka dhigneyd guul uu ka gaaray musharaxiinta mucaaradka ee la tartamay iyo si la mid ah guul uu ka gaaray madaxweynaha dowladda federaalka, kaas oo ka xirmay albaab uu gacanta u dhigi lahaa maamulka Puntland. haddii uu maanta madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni u ahaan lahaa madaxweyne muddo dhaaf ku joogo sidii lafta ama qorqor, waxaa sahlanaan lahayd in la weeraro maadaama uu sharci daro ku joogo. sidaas si la mid ah maamulada kale laga qabto doorasho ay dowladda raali ka tahay. Number 2, ismada ama odayaasha dhaqanka Puntland waa aas-aasayaasha Puntland, waa dadka iska leh Puntland. waxa ay ka sareeyaan mucaarad iyo muxaafidba. waxa ay door aad u weyn ku leeyihiin nidaamka siyaasadda iyo bulshada Puntland. ku dhawaad 30 musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamista xilka madaxtinimo ee Puntland iyo ismada dhaqanka ee Puntland ayaa waxay ka soo horjeesteen go'aan dhawaan ka soo baxay xukuumadda Puntland oo ah inaysan mas'uuliyiinta ka socda dowladda federaalka Soomaaliya aysan booqan karin Puntland inta doorashada laga gaarayo. warkani waxa inoo diyaariyay wariyahayga Axmed Diiri Ciltire. shirkan ay maanta iskugu yimaadeen isimada dhaqanka Puntland iyo 30 musharax oo iskugu jira madaxsharixiinta madaxweyne iyo ku-xigeen ayaa ka qabsoomay hoyga guriga Islaan Ciise Islaan Maxamed uu ka degan yahay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. odayaasha dhaqanka ayaa door hogaamineed ka qaatay shirkii Garowe ee 1998 ee lagu dhisay Puntland. waxa ay la shaqeeyeen siyaasiyiin, culimo, ganacsato, waxgarad si loo dhiso maamul ka shaqeeya nabadda iyo dowladnimada. waxa ay heshiis ama wadahadal dhex dhigeen mucaaradka Siciid Deni kuwaas oo aan ku qanacsanayn doorashadii 2024 ka hor iyo kadibba. doorashada ka hor, mucaaradku waxa ay diideen ka qaybgalka doorashada. wadahadal ay odayaasha sameeyeen kadib waxa ay ku qanceen doorashada, waxaana dhacday doorasho loo dhan yahay taas oo ka bedelan doorashadii Jubbaland. Siciid Deni iyo Puntland doorashadii hore u dhacday intii aan la sharciyadan iyo nidaamyadan waxaan aan la dejin. ninkan odaga ah Jubbaland joogan ana doorashiisa ma aqoonsanin isaguna madaxweyne inuu yahay uma aqoonsanin. waxaa nasiib darro ah madaxweyne qoorqoor waa fadhiya laakiin Deni ma fadhiyo. ka kale anuu madaxweyne uma aqaan ma aqoonsanin isaguna madaxweyne inuu yahay uma aqoonsanin. ka kale anuu madaxweyne uma aqaan. doorashada kadib mucaaradku waxay u arkeen inuu Siciid Deni boobay codadkoodii, laakiin wadahadal ay odayaasha u sameeyeen kadib waxa ay ku qanceen taladii odayaasha u soo jeediyeen kar iyo gardaraba. wax badan baa waxaa la yiri dimuqraadiyadda saasay ahayd iyo waxaasay ahayd iyo technical lagu wada mideeye. waxaan u malaynayaa waa ka warqabtaan wuxuu ahaa ururkii koowaad marka laga reebo Deni oo boobay codadkii dadka kar iyo gardarra waa boobay. sidaas la mid ah dowladda federaalka bishii Juun 2024 waxa ay taliye u magacaawday taliska qaybta 54aad Garowe, taas oo ujeedadu ahayd in Siciid Deni cadaadis lagu saaro. laakiin odayaashu waxay wada hadalsiiyeen Siciid Deni iyo Generaal Jimcaale, xiisadiina waa ay degtay. isimada dhaqanka Puntland ayaa baaq u diray in khilaafka soo kala dhex gala madaxda dowladda Puntland iyo maamulka hay'adda ciidamada BSF ayaa sheegay in hawsha lagu dhameeyo si hoos ahaan isla markaana laga fogaado wax kasta oo keeni kara khilaaf
iyadoona ay sheegeen in magaalada Boosaaso uu ka jiro dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinaca. beesha caalamka dowlad deeq-bixiyaasha sida Mareykanka iyo UK Puntland waxay u arkaan maamul muhiim u ah xasiloonida Soomaaliya balse guud ahaan waxay u arkaan xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland in lagu xaliyo wadahadal ayadoo loo marayo dastuurkii 2012 Siciid Dani waxay u arkaan madaxweyne saxan mudxileedkiisana ku shaqeynaya mana ogola in asagoo mudxileedkiisa saxda ah ku jiro in la weeraro laguna bedelo mid uu Xasan Sheekh Raali ka yahay. Media